Oh yeah! kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta mudan oo ilahantiima meel kasoo joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkaad uga barateen inuu idinka soo baaho bartamaha magaalada Toronto. magacay waa maxamed daahir xasan. daawadayaal waad ku mahadsantihiin hadii jeer daawashada barnaamijka iyo sida aad noola soo xiriirtaan una qayb qaadataan fikradihiina, maskaxdiina, taladiina iyo intaba waxyaabaha badan oo aad nagu biirisaan. aad baad ugu mahadsantihiin. maanta waxaan idin haynaa barnaamij ku saabsan dabcan kuwii joogtada ahaa oo idin kasoo gudbin jirnay hadii jeer waxa kusoo kordha soomaalida qurbo joogta gaar ahaan Toronto iyo Canada iyo wax kasta oo wadankii hooyo ku saabsan. qoraalka afka Soomaaliga ayaa muddo dheer waxa uu ahaa mid ka yaraa intii la qoray intii luqaddu ay jirtay. 72 baa la qoray afka Soomaaliga waxaana ka qayb qaatay runtii dawladdii Maxamed Siyaad Barre ayaa aad loogu amaani karaa iyadoo ay jireen farar ama ka horeeyay oo la isku dayay in la qoro af Soomaaliga. waa tahay waxaase fartaas ay sahashay in kombiyuutarada la isticmaalo, in xuruufta Laatiinka laga faa'iideysto, in dhammaan dadka Soomaalidu meel ay joogaanba ay noqoto mid ay isu gudbiyaan si sahlan loo isticmaalo u baahdo. waxaase muhiim ah intii burburku dhacay in af Soomaaliga weerar lagu qaaday oo luqado kale ay kusoo qaadeen, luqadda Carabiguna ugu horeyso, oo dad badan oo Soomaali ah oo wadankii Soomaaliya kasoo jeedana ay gurbaanka la garaacayaan iyagu yihiin kuwa sahlaya. madaxda Soomaalida ku jira, dawladda Soomaaliya federaalka, dawladda Puntland baa ku jirta, Somaliland baa ku jirta, Jubba ayaa ku jirta. intii Soomaaliya la oran jiray ayaa dhammaantood af Soomaaliga aad moodaa inay liddi ku yihiin runtii inuu hirgalo. tacliintii publica la oran jiray ama dadka ayaa la baabi'iyey. iskuulaad wada private oo Carabi ah oo al-hebel ka wada bilowda al-Huda, al-Shaaficiya, al-something ayaa meel walba la keenay. afka Carabigana dad baa lacag ku bixiya si Soomaaliya afkeeda loogu baabi'iyo. waxaa muhiim ah dadku inay kacaan. war wixiina idinkaa iska leh. nebi maxamed awoogiis cabdulmudalib waxa uu ku yidhi ninkii amxaarkaayoo soo weeraray kacbada ilaahay baa ilaashanayo iska leh. war Carabiga 22 wadan ayaa lacagtii ka badatay ayaa ilaashanaya, balaayiin dollar bay ku bixiyaan. war afkiina usoo jeesta, afkiina u kaca. waa tahay hordhacaas waxaan jeclahay inaan uga faa'iideysto 20 sano ka hor ayaa shirkadda publishingka ee loo yaqaano Skanzam lagu aasaasay waddanka Sweden. shirkadaas runtii waxay noqotay mid ka qayb qaadatay horumarinta iyo joogteynta dhaqanka afka iyo luqadda Soomaalida iyo sidii waxyaabo badan loo ururin lahaa oo loo qori lahaa oo dadka Soomaaliduna ay u garan lahaayeen waxa iyagu ay leeyihiin. xaqiiqdii waxaa la oran karaa waxay mutaysteen bilad waxa loo yaqaano. 20 sano ka hor ayay ahayd dhawaana waxaa lagu qabtay xaflad goob ku taala magaalada Toronto iyadoo dad badan ay kasoo qayb qaateen barnaamijka isaga. waxaa halkaa lagu soo bandhigay buugaag badan oo shirkaddu ay qortay. bal aan soo dhaweeyo guddoomiyaha shirkadaasi waa maxamed sheekh xasan. mudana kusoo dhawow barnaamijka. maxamed daahir waad mahadsan tahay, waan dhowahay. aad iyo aad adigana waxaan ku leeyahay hambalyo ayaan ku leenahay 20 guurida kasoo wareegtay iyo waxqabadkiina aad iyo aad ka u qiimiga badan. waxaan jeclay inaan ku weydiiyo bal Skanzam goormaa la aasaasay, xaggee lagu aasaasay iyo waqtigii la aasaasay iyo waxay tahay waxayna la qaybso. mahadsaned maxamed. Skanzam magacu sidaad sheegtay wuxuu u dhigmaa Scandinavia iyo Soomaaliya oo la isku daray oo la soo gaabiyey. waxaan ka curinay shirkaddan magaalada xaruntayadana ah magaalada Stockholm sanadkii 1993. buuggii ugu horreeyayna waxaan daabacnay bishii Oktoobar 16 1994. waa sanad guuradii 20aad ayaan ku jirnaa maartay hadda. marka hambalyo ayaan leeyahay dhammaan dadkii gacanta shaqaalaha Skanzam iyo dadkii gacanta nagu siiyey yagleelida iyo asaasida shirkadda Skanzam Publishers oo saldhigeedu yahay magaalada Stockholm, laan weynna ku leh magaalada Toronto oo cilmi baaris ka samaysa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waqooyiga Amerika. waan gartay. dabcan shirkadda dad baa waday oo madax ka ahaa oo adigu kow ka ahayd iyo dad kaloo fara badan oo ka qayb qaadanayay.
waa maxay ujeeddada iyo sababta iyo waxa ku wada motifka loo yaqaano oo kugu dhiirigelinaya arrintaa iyada ah bal waxayna la qaybsan arrinta maxamedow laba waxyaaboodba waa igu kalifeen midda koowaad waxay ahayd aniga oo waxoogaa dadka ka soo horreeyey oo Sweden waxaan soo galay bishii January 21 sanadkii 1981 baan soo galay muddo hadda laga joogo 34 sano ka hor baan soo galay iskuulkii markii aan dhiganayay oo ahayd jaamacadda Stockholm yani meeshaan ku hana qaaday oo ku barbaaray runtii waa Sweden weeye wax ku bartay reer ku yeeshay caruur yani alxamdulilah rabbil caalamiin aan ku yani ku hana qaaday halkaa weeye nimanka marka waxaan ka bartay waxaan la yiraahdaa diiwaangelinta adabka iyo ururinta iyo dhaqanka maktabadaha waaweyn ee Sweden oo ahayd waagii aan tagnay hadda groupkaygii anigu waxaa iga soo horreeyay 17 qof dad badani ma deganeyn marka saacado fara badan baa waxaan fadhin jiray maktabadda Stockholm oo kutub fara badan maxamed xasan hekel buugtiisii maartay The Road to Ramadan iyo Sadaati iyo waxyaabahaas ayaan ka akhriyay iyo Nuuridiin Faarax ku isiiyo halkaas marka waxay bartay inaan fadhigaas faraha badan ee kutubta aan daalacanayo dooqi halkaas si toos ayaan ka helay arrintii labaad ee dardargelinta iyo yani igu dhaqaajisay in aan yani waxaan aan kaydiyana wuxuu ahaa nasiib darro xilligii markii barbarku dhacay dadkeenii markuu barbarku dhacay saad la socoto taariikhdeenu dadkeenu waa dad yani qoraal badan aan lahayn farteenna qoraalkeeda waxaa la sameeyey dhowaan bay ahayd 27 bay ahayd markii la hirgelintii lagu sameeyey wax yar baa la daabacay kadib markaa waxay noqotay markii 19 xukuumaddii dhexe ay barbartay oo aan arkay asxaabta yari ee Stockholm in uu fadhi ku dirir yani xoog la saaray ayaa waxaan xoog aan saaran isiri wallahi way fiicnaan lahayd haddii aad wax ururin kari lahayd marka halkaasayto ayaa ka bilaabay ururinta marka cajalado aan iibsado iyo dadka cajalada ka qaado iyo dadka marka saasaan ku bilaabay maaragtay ururinta gabayada heesaha sheekooyinka mahmaahda sidoo kale waxyaabaha dhiirigeliyay waxaa ka mid ahaa waxaan markaa ogaaday fursadda aan dalkii ugu noqon karno inay yar tahay taasuna markaa waxaan ka bartay qowmiyaadkii naga soo horreeyay Sweden aan ku arkay ayaa kuwa badan oo asxaab aan la noqday waxay oran jireen noqon maysaane halkan yani dega oo ma garanaysa xididku yani xididkiinu halkan hoos ha u qadnaado raad ka taga waxyaabaha dhaqanka sameeya waxyaabahaasoo la isku dardaray laakiin waxa ugu weynaa burburkii markaan arkay in ay noqotay xaalkeennu ceelna uma qodna cidina uma maqna oo hay-adihii dhaqankana la burburiyey markaasay noqotay wixii aad caymin karto oo aan badbaadin karo qof ahaan inaan markaa anigu meherad ka dhigto oo dabagalo sidaas ayuu ku liftay waa tahay runtii si way baad u qeexday waana waxa la filayey in muddo dheer maadaama aad timid saa u sheegtay arrintaas laga faa'iidaysto waa tahay waxaan jeclay inaan ku weydiiyo su-aal kale maxaa inoo qoran had jeer markaan meel isugu nimaadno waxaa la yidhaahdaa la isweydiiyaa meeqa buug oo Soomaaliya qoran maxay kala yihiin maadaama aad inta muddo dheer kusoo jirtay bal wax yar waxa inoo qoran bal ku dareeri mawduuca ah maxaa inoo qoran maxamedow laba qaybood baynu u qaybinaynaa kow qaybta koowaad waxa weeye xilligii burburka wixii ka horreeyey ee la qabtay ama la daabacay waa qayb wixii ka dambeeyena oo maalintaasiyto laga bilaabo maaragtay hay-adihii dhaqanku ay burbureen wixii ka dambeeyena waa marxalad cusub oo markaa aan bilowna weeye tii hore haddaan wax yar oo yani taariikh milicsi aan dib u sameeyo Soomaaliya waxay lahaan jirtay laba hay-adood oo mas-uul ka ahaa kaydinta daryeelka kobcinta qoraalka afkeena hooyo waxay kala ahaayeen wasaaraddii waxbarashada iyo akademiyada dhaqanka ahaa tirakoob labadaas yani hay-adood bay ahaayeen tirakoobkii ay soo saareen xilligii burburka ka hor weli tiro saxa ma hayno qiyaastii 200 ilaa 300 buug meelahaasitu yani ayaan aragnay maraan ururinay oo hal aan u raadinay buugaagtii soo baxay ama dictionary ha ahaadeen ama kuwa yararka sheekooyinka jacaylka ha ahaadeen ama ha ahaadeen kuwa dhaqan ku saabsanaa gabayada iyo heesaha wax laga ururiyey marka dhinacaas waa iga maqan yahay
laakiin intii aanu yani ka soo baarnay maktabadiyahan ka soo baarnay oo ay ka mid yihiin maktabadda yani library of congresska ay ka mid tahay jaamacadda maarata Indiana University ay ka mid tahay jaamacadda London School of Oriental and African Studies meelaha saddexdaa meelood baa ugu yani muhiimsan kaydka yani qoraalka Soomaaliga meeluhu yaallo qiyaastii intaasaan ka helnay marka 200 anigu marka waxaan garwadeen ka noqday shirkaddan markaan aan aasaasay yani anoo markaa hiigsanaya in aan markaa horey halkaa uga ambaqaado gabadh la yidhaahdo Anita Sullivan gabadhaasaan ku dayday oo ii ahayd role model gabadhaas runtii door weyn bay ku leedahay qoraalka Soomaaliyeed sideetanaadkii gabadhii wax daabici jirtay weeye waa afada iyo marwada u dhaxda Sullivan Gaal ninkii la oran jiray ee DG-ga wasaaradda waxbarashada ahaan jiray marwadiisa weeye lib iyo gallad ayaan u haynaa gabadhaas Anita qayb weyn bay daabacday oo buugta Soomaaliyeed ahaan baa la oran jiray shirkadeeda maaragtay kutubta daabacda dabcan hadda way ka ritaar garooday oo qoraalku waa dhib badan yahay waana dheef yar yahay iyadaa marka anigu yani ii ahayd qofkii aan ku dayday halkaasaan ana ka bilaabay tirakoobka marka haddaan ku siiyo guud ahaaneed ay shirkaddu tirakoobka guud ahaaneed aynu dibadda ku daabacnay xoog Soomaali oo dhan marka la isugu geeyo waxa weeye 400 oo buug oo la daabacay 20kii sano ugu dambeeyo ninkii raba ha qoro meeshii raba ha lagu daabaco mawduucuu raba kitaabka ka hadlay 400 oo buug baa inoo qoran tirakoobkaas 95% waa sax weeyo oo kutubtaas ay miiska saaran oo kale ayaa maaragtay ay u yaalaan 106 ka mid ah waxaa soo saaray shirkadda Iskaasum baa soo saaray boqolkiiba qiyaastii 35 dhammaan xoogga Soomaali ay wada daabacdo shirkadda ugu weyn ee soo saarta waa shirkadda anigu aan maartay hormuudka aan u ahay Iskaasum waxayna u kala baxaan haddaan yani aan wax yar xuso buugaagta daabacan haddaan wax yar qaybino waxay u kala baxaan buugaagta maaragtay ku saabsan suugaanta oo ah gabayada iyo heesaha iyo mahmaahda iyo riwaayadaha ilaa waxaan ka daabacnay ninkii raba daabaco waxaa daabacan qiyaastii maaragtay ilaa iyo 55 ilaa 60 buugaagta carruurta ah iyo sheekooyinka malawaalka ah waxaa ka daabacan qiyaastii 50 taariikhda iyo siyaasaddu wax badan kama daabacna dhinacaas inkastoo xoogga ugu fara badan halkaa uu galay fadhigudurarka haddana wax badan lagama daabicin 15 ilaa 20 buu ka daabacan caafimaadka iyo arrimaha dumarka iyagana wax aad u yar baa ka daabacan qiyaastii 8 ilaa 9 baan ku qiyaasnay dhakhaatiirtu waxay ka mid yihiin dadka ugu liita ee wax qoray ka mid yihiin marka laga reebo warqadan dawooyinka ay yani medical prescription marka laga reebo shaqada oo meheradooda ah kutubta diiniga ah waxaa yani hormood noo ah Cabdicasiis Baabaraqiis Saad Suuban Sacuud Reebi oo dhinacaas yani sameeyay dadaal weyn ilaa dhowr iyo 20 buug soo saaray qaamuusyada waxaa noo amaaratay laftigeedu iftiin ilaa iyo maaragtay dhowr iyo 10 buug baa yani ka daabacan oo ah ma garanaysa dictionary-yada ah buugta la yiraahdo fictionka iyo malawaalka waxaa ka daabacan qiyaastii waxaa ka daabacan 30 kala bar aan soo saarnay Iskaasum soo saartay cilmiga iyo sanaacada wixii ku saabsan waa aad iyo aad bay u yar yihiin 5-6 meelahaasaan haynaa ganacsiga iyo dhaqaalaha wixii ku saabsan ilaa 5 buug buugaagta la yiraahdo maaragtay qosolka iyo comedy-ga 3-4 buug buugaagta kale oo marka la isku celceliyo ilaa 100 buug oo ninkii raba yani ha qore marka tirakoobka haddaan yiraahdo aan u dhigo dalag buugeedkii soo go'ay 20kii sano ee aan soo dhaafnay Maxamedow waxa weeye 400 buug weeye oo maaragtay Iskaasum iyadoo ay 35 ay soo saartay weeye 60% buugta aan sheegay waxaa lagu daabacaa dalka Sweden ayaa lagu daabacaa Swedish waxay waa niman caqli badan waxay aaminsan yihiin qofka tiis daryeela ayaa si kale ku dara fikradda xaggaas ay aaminsan yihiin waxaa la yiraahdaa la jaan qaadid integration caruur noo eg ma aha afkiisa isagoo haysta ayuu si kala baran karaa weeye halkan aan joogno ee waqooyiga Amerikana waxaa laga isticmaalaa ku milmid iyo assimilation waxaagii tuur oo tu cusub qaado ayaa yani laga isticmaalaa sababta keentay 95% carruurta halkan joogta inaynan af Soomaali qori karin akhri karinna maaragtay waa tahay nooca kale markaad eegto cajaladaha iyo joornaalada laftigooda waa qayb weyn maxaa iyaga
bal iyaga wax yar waxay ahaayeen taariikhdoodii iyo bal wax yar nala qaybso. cajaladuhu waxa weeye waxaan la yidhaahdo raadraac sourceka wax laga qoro marka wax qorayso waxaad u baahantay marjic ila aad wax ka soo xigato marka cajaladihii la duubay horey loo duubay ha ahaadeen kuwii kaydka redio muqdisho uu duubay ama kaydka redio hargeysa ama kaydka redio jabuuti ama kaydka maarata redio laanta af soomaaliga ethiopia ama kan qaahira yacni meelihii afkeenu ka bixi jiray kuwa waa raadinaa inkastay marar badan adagta inaad helaynin ama farsamadii laakiin wixii cajalad aanu heli karnay kolley baan kaydkayga cajaladihan ururiyay aan wax ka qoro qiyaastii ilaa 8 ilaa 900 oo cajaladood ayuu ahaa ka koobnaa kuwaasaan marka waxaanu ka qornaa gabayada heesaha mahmaahda halxiraalaha taariikh afeedka diinta laftigeeda siirada culimo badan oo geeriyootay baad maqlaysaa codkooda cajaladaha ku duuban technologygaas waa technology hadda xogaa u baahan in laga guuro oo hadda ma helaysid baa cajalad meelaad geliso dhinacaas marka waa nooca weeye fikradda laftigeeda waxaanu ka alifnay in aanu ka samayno bugaagta codaysan ee la yidhahdo audio boxka hadda kuwan waa buugtii oo DVD ah maaragtay yani noocaas ah ma garanaysaa iyadaanu maaragtay yani ka samaynay DVD boxka iyo audio boxkaba marka kayd fiican baa dhinaca aan ka ururnay oo mustaqbalka noqon kara sidoo kale waxaa jira aanu ururnay oo waxyaabaha kaydkaanu hayna ka mid ah jaraa'idkii ma garanaysaa dalkeena ka soo bixi jiray maalan oo aanu hayno oo isagana aan inta badan aan ururnay baa ka mid ah waxaa ka mid ah maalan jaraa'idkii kasoo bixi jiray 60kii ilaa iyo 70kii waa jaraa'idka Somali News la oran jiray oo Ingiriis kasoo bixi jiray waxaa ka mid ah journal la oran jiray maaragtay National Review oo Ingiriis kasoo bixi jiray waxaa ka mid ahaa maaragtay Dawn laftiisa Ingiriis kasoo bixi jiray الطليعة وعربي أهيد Somali Courier ama Courier del Sahara oo Talyaani Ingiriis kala badaba aha jaraa'idkaas oo 60kii ahaa ilaa iyo 69kii dawladihii rayidka xilligii ay jireen ahaa in badan baanu ka haynaa kulli ma wada hayno laakiin qayb fiican baanu ka haynaa dalka laftigiisa joornaalkii la oran jiray qayb fiican baanu ka haynaa xidigta October dhowr iyo 20 sano ayay 73 kan u malaynaya in ahayd markii la bilaabay ilaa iyo 90kii burburkii inteeda badan waanu haynaa iyada laftigeeda maaragtay inteeda badan oo xogaa yaroo ka maqan mooyee xooggeedii maaragtay waanu haynaa waxaasoo dhan marka waxa weyn waa kayd xoog leh oo aan gelinay 20kii sano ugu dambeeyey maqal iyo muuqaal iyo daabacad qoraal aba in aanu maaragtay yani ururino sidoo kale waxaanu ururnay oo yani inta badan hadda laftigeeda aanu haynaa wasaaradda waxbarashada wixii ay hore u wada daabacday oo dhan ee kutubtii ahaa manaahijta ahaa badankeed waa wada haynaa waa ururnay waa raadinay waxaasoo dhan marka wuxuu u baahan yahay awood iyo dhaqaale ka weyn inta aanu ku soconno inta aanu awoodi karno dad yar oo shakhsiyaad baanu nahay waa arrin dawlad u baahan xooggii dawladuhu ay qaban jireen baanu qabanaa dawladda Soomaaliya xooggii qaban jirtay marka xogaa 20 sano xoog ayaanu gelinay hadda kadib yani waa darandooriyaaba naasnaasi ama hasha godolka wacanay marun baad gaabin xoog waa soo yaraanayaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa maamulada hadda maaragtay nabadda haysta oo ma garanaysaa xogaa miyirku ku soo noqday oo garafka colaadda tuuray in ay maaragtay doorkooda ay maaragtay yani ay qaataan oo ay daabacaan oo ay dhaqaale ay geliyaan ayaanu maaragtay halkaa yani ku bogaadinaa waxaan jeclahay inaan bal ku weydiiyo magac marka la bixinayo sababta loo bixiyo waa maxay maxaa ma dhiila ma farxad ba gaar ahaan gabdhaha iyo wiilasha labadaba adoo bal gabdhaha u badinaya bal nala qaybso wax yar magacyadu maalan haddaan fiirino gabdhaha Soomaali gabdhaheena waxaa loo bixiyaa badanaa magacyo wanaagsan oo raxmad iyo farxad iyo waxaas maaragtay tusaaleeya ayaa gabadha loo bixiyaa maalan magacyada cawo hoodo falxado farxado gallado sareedo naruuro nasteexo ayaan samawada caanood barwaaqo hibo raxmo tanaad intaas magacyo oo dhan waxa weeye waxay wada tilmaamayaan farxad iyo reerayn iyo astaan khayr bay tilmaamayaan maaragtay gabdhaha
wiilasha laftigoodu ma badna dhinacaas. wiilasha waxaa loo bixiyaa marka waa looyaan iyo dirir iyo maxaanku idhaahdaa colaad iyo dacar may inuu diriraa la doonayaa. meesha gabdhaha loo bixinayo raxmad iyo ma garanaysa wax wanaagsan oo jilicsan oo macaan. wiilka waxaa la rabaa inuu dagaalamo oo dirir iyo looyaan iyo colaad iyo waa magacyo dagaal weeye, nin wax iska dhiciyo kale weeye. magacyadaas sayta aan soo sheegnay waa samatar iyo samow iyo khayre iyo samawadi ayaa la mid ah. gabdhaha magacyada kale oo loo bixiyo waxaa ka mid ah xataa cagaarka oo kale waxaa loogu magacdarayaa cosob iyo magool iyo hibaaq iyo ubax. waa wada flower ayaa laga keenay. hibaaq yani waa flower, waa ubax weeye. magool iyo cosob waa barwaaqadaa weeye. khudaarta laftigooda waa loogu magacdaraa oo canab iyo timiro iyo laymuun iyo saytuun ma garanaysa waa magacyadooda weeye. waxaa jira yani gabadha laba rabo magaca la siinayo waa inayna ceebaal waa inayna lahayn. matalan saafi iyo saxarla iyo xareedo iyo soohan iyo habboon iyo hufan iyo maandeeq maankay deeqda weeye. iyo saaqa waxay saaqday maankii. siraad waa iftiin weeye. tolmoon, toosan, tusmo, qoran, intaas waa ceebaal iyo nusqaan, waa gabdha aan lahayn weeye. wiilasha matalan waxaa loo bixiyaa xilliyada kuwa dhashoo kale guure iyo bariise, hiraabe iyo mire. waa habeen barkii iyo saqda dhexe wixii ka dambeeya kuwa dhashaa loogu magacdaraa maaragtay. xilliyada lagu jira geediga kuwa dhasha waxaa loo bixiyaa geedi iyo hayaan iyo kaynaan oo kale ayaa loo bixiyaa. colaada yani kuwa dhasha waxaa loo bixiyaa dacar iyo dirir iyo baaruud iyo looyaan. inagoo markaa yani la soconna habkii magacyadu saas in loo bixiyo waxaa ka mid a magacyada maaragtay xarafka ah haddaan soo qaadano: caanood, cabdiyo, cadar, caddeey, cajabo, cajiib, calaso, calwiya, cambaro, carfi, carfoon, caraabo, cartamo, carwo, casey, cawilo, cawo, cawrala, caynaba, ceebla, cibaado, ciribla, cosob, cubtan, cudbi, cudoon, culan, cutiya, cawilo, caways, cimilo, ciiltira. xarafka ca intaasaan ka helay. xarafka da waxaa ka mid a magacyadaanu helay: daado, daaho, dahabo, dalaayo, dalays, daman, darmaan, daruuro, dayaxo, daynabo, deeqa, deggen, degmo, dihin, diiran, dawo, dawlo, dayaxo, dugsoon, diraaco, doombiro, duco, diimoon, duniyo, dulman, dulmar, dugsiya. intaasaanu ka helay. buuggan waxa weyn waa qaamuuska magacyada soomaaliyeed. wuxuu ka kooban yahay yani ilaa 5,000 magac, 400 oo gabdhood oo magacyadooda ah. wiilasha waxaan ka helay 800. geedaha waxaa ku jira 1,000 iyo magacyo fara badan. wixii magac ahaa baana isugu keenay ururinta koowaad maaragtay. halka maxamed. waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed. adiga iyo saaxiibada iyo iskansamna waxayna leenahay howlka madaalooyinow ciddii weli waa hayaan hawsha horey u wada sii qaabeeya. aniguna haddaan nahay muuqaalka soomaalida iyo codka beesha soomaalida kelmadiina laku bartay baan idinkaga tegaynaa oo ahayd gabadhkiina af soomaali kula hadla.